agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowladda Soomaaliya Cabdiwaaxid Ibraahin Axmed ayaa magaalada Muqdisho ka furay shir ku saabsan dib u eegis lagu sameeyo siyaasadda istiraatiijiyadda iyo qorshaha WASH ama fayadhowrka biyaha Soomaaliya kaasoo socon doona muddo 2 maalmood ah waxaana ka qaybgalaya wasaaradaha tamarta dowlad goboleedyada gaar ahaan qaybaha biyaha waxaana sidoo kale xoog lagu saari doonaa qoraalka laga soo diyaariyay siyaasadda istiraatiijiyadda oo lagu dheelitirayo luqadda afka Soomaaliya isla markaana wada tashi la geli doono agaasimaha waaxda biyaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowladda Soomaaliya injineer Cali Maxamuud Xirsi ayaa ka hadlay ahmiyadda barnaamijkan uu leeyahay siyaasadda biyaha dalka runtii waa siyaasad aad iyo aad lafdhabar ugu ah habka dhaqan-dhaqaale ee bulshadeena caafimaadkeeda iyo dhaqaalaheeda iyo horumarinteeda muhiimadda ay leedahay ayaana shirkan aan u qabanay marka maadaama ay wax naga dhaxeeya tahay mar walba isugu nimaadno oo aynu ka tashano oo aynu wadaagno oo ay noqon qolo waxay ku sidato ligliga ayaan runtii idinku yeedhnay shirkeenu wuxuu ku saabsan yahay marka barnaamijka isaga in aynu la faguro inaynu isla meel dhigno oo haday tahay siyaasadda muxuu ahaay guud ee biyaha iyo fayadhowrka iyo labada lifaaq ee la socda oo midna qorshihii lagu hirgelin lahaa ay tahay midna uu yahay kii lagu ogaanayay lagu evaluate gareynayay lagu korjoogteynayay yaana barnaamijyadii iyo wixii ma hirgaleen agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowladda Soomaaliya Cabdiwaaxid Ibraahin Axmed ayaa ku booriyay in loo baahan yahay in la iswaafajiyo siyaasadda biyaha oo ay hore wasaaraddu ku bixisay dadaal badan barnaamijkan maanta wuxuu noo socon doonaa 2 cisho labada cisho waxaa lagu gorfayn doonaa barnaamijka meesha uu joogay oo ay noo ahayd inaanu haysanay isagoo version English version ah kadibna aanu dirnay daabacaad la soo turjumay isagoo luqadda Soomaaliga maanta waxaanu eegaynaa bal luqaddii Soomaaliga ahayd ee lagu soo turjumay bal inay kaasi sax tahay iyo inay wax ka qaldan yihiin inay labadaasi version ay iswaafaqayaan iyo in kale inahaas ayaanu ka shaqayn doonaa labada cisho ee maanta aanu joogno dadka ehelka u ahaana ee shaqada faraha kula jiray ee howlwadeenada ka ahaa ee wasaaradaha kala duwan heer federaal iyo heer kaasi state-ba ay wada joogaan runtii ujeedadaas markaanu ka gudubno yacni hawsha aanu ka soo qabanay haddaan in yar aan dib u eegno barnaamijka la yidhaahdo yacni WASH sector policy and strategy an M&E framework waxay ahayd shaqo aad u fog ee bilaamatay 2016 ilaa 2017 marka la soo dhameeyo wada tashidan waxaa xigi doona in la horgeeyo golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya qorshaha WASH ama fayadhowrka biyaha si uu ansixiyo waxaana sidaas ku noqon doona siyaasad uu dalka ku shaqeeyo Cabdiqaadir Shacab warbaahinta qaranka Muqdisho.